السلام عليكم أرضي وعشر كيلوات برشة أفقية سوغانتا فصل كافراد الدكسي كسرة عشر كيني كوباد وحين كسو قادني ميسان كمان صدا الصوماليات إنه كوكو تشيرني وليبا تغفركي وسمي الله نحرسي محمد حاشي لمع قارية أو أي نصار رجلي حرارك وقارية أو لقي ميسامي دمان صدا إيوه قد ما سيدي كردوان أو إنه كعبرني ميسان كأوصل صاري قارية ما أنت وحين لما يسترينا ميسان كي منصدة قارية وحين صدق كلا سوق هذا ميسان كي منصدة عثالة صدق كلا وحين سوق هذا لقيحتان جود أو كسبسان منصدة يشرود هذا قراركم وحو كمدي هي قد ما سيدي هذا سوتشرين كأه أي لا هاي تحدا صومالدو waxa loo adeegsan jiray waxyaabo fara badan oo kala gedisan oo la xidhiidha nolosha sida tusaale ahaan ridada warmaha xaragada iyo socodka fardaha waxa loo adeegsan jiray dagaalka oo weerar iyo rogaal celin labadaba ah waxa loo adeegsan jiray nabadgelyada dabaaldega tartanka waxa sidoo kale loo adeegsan jiray socdaalka dheer faanka iyo dhaliisha xilliyada adag geerarku waa god soo jireen ah waana koogu caansan marka laga tago gabayga waa tiirka labaad ee gabayga labeeya Soomaalidu waxay geerarka u adeegsan jirtay nolol maalmeedkoodii hore tusaale ahaan marka dibiga beerta lagu qodayo iyadoo dibiga loo niyad dhisayo oo la leeyahay hadhow baa la wanaajin doonaa si wanaagsan u shaqee waxa la oran jiray markay beertu bislaato bulaalo labadeena wana loo burigoyn والله شو ولا أول مرين دونا شو ونكسن وشقة وحكله ولا أورن شيء بريس كي على عداء بدل لغة هلاوي واتنو لبوديو بوشيه لقى صاري بيرل إذا كده لقوا صار صاران عيلين على بخدن يقل إذا يقمدني كمان عن بريس كي على عداء بدل لغة هلاوي وهي ساكو فليا قد ما نسيت كلاه يغنو جيرار كوحليه اللغة هوبالي بريغو هره حبلوه markay dhaanka kaxaynayaan ayaa iyagu awrta la hadlaya waxay dooran jireen war cadaawo caruurtii yaraydiyo culima ku sugaysay cagta soo fududeeyay shaluutaar ku xidhnaayo xalu taaganahayo uu tago gacasoobo dhulku taakinaya wali halka uu geerar ka soo jeedo ayuu faahfaahinayna hees fanadiya badan oo caanaynu naqaan waa geerar allamaanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahi inasi isaga ku abaale wajiyaaris xasuusta laba aan kala weecan laba aan kala inaga isku wacnina maxad iiga wareegtay oonka roobku ma daayo أنا تاهم دايو شعيلي تولي مايو إبقى ليسو تلاقيل كليس مقرقارو مرة رالية هود بعد مش مشاحي لهيدو مرسين جيل كعبا يدو حكام ماري لهيدو إنقون كلامار من كل هيدا بغلان منهج كان مركز نوصل لغلو كوا كوتشرا جيرا صدا عادي وحكام ذا روب مقالو كهوري رما صوبحين ما يلا مدو كرفتا وجيرا عبد الله عبد الشواب xilligii xornimada 26 Juun 1960 Abdullaahi Sultaan Timcade geerarkii uu tiriyay sarreeyo manusqaamo aan sidoo yahay eege ka nasiib kan nasaar geerarada waxa kamid ah kii uu raagowgaas faraskiisa ku amaanayay oo lahaa wal hadow faraskayga wariyaroon ku amaanay uu gamaan ka bilaabo waxa kamid ah kii uu waan farax nuur lahaa ka sabaan baan sabaanta u badsaa haduu saakimo waayo salibaan u dhigaayo iska seexayra ee diblomaasiyadda badani ku jirtay ee uu kaga sheekeynay sida uu dadka ula dhaqmo hadii wanaag u deeq waayo in aakhirka waran intuu galay dhinac kale uu uga saaro marka aynu soo noqono cabirka meerisida uu leeyahay geerar waxaan soo qaadan la geerarkii ergo أو تري الله نحرسته محمد حاشد مع قارية وحيري أوف قبيلك أنا له وحين أركينا جيرار كله كوب بالعام يوم شغل قاب باكو حاجة شغل ليرة كو حاجة لبا شغل قاب بس كو حاجة
shaqaleera ku xiga shaqalgaab ayaa ugu dambeeya sidaas awgeed geeraarku wuxuu noqonayaa oo inoogu fadhiisanaya inuu yahay inta badan sagaal shaqale geeraarku wuxuu inta badan inoogu fadhiisanaya inuu yahay maxay sagaal shaqale meerisida kale ee geeraarka ah ee aynu aragnana sidaas ayuun baynu miisaanka u saaraynaa godad maanseedyada kale ee uu buuggu qorayo waxaa ka mid ah kaasaliga nebiga shalay hore waxaynu soo sheegnay inay jiraan godmaanseedyo xidhiidh leh oo tusaale ahaan cadaloolka maroodi cadhoole haddii cod la sheego cadaada kumeer hashii cusub waatan kaas haddii laba shaqo lagu daro waxa samaysma godkii baarcadaha ama saarka hiyeelow hoobi waa habluhu gaagaabana ma gudin baa lagu sarjaray jacayl lama moosi karo sidii maya guuda ah mirood buu kugu dila waxa ku sii xigaya dhaantada ayaa iyaduna ku sii xigaysay oo ka samaysmaysay ama hirwada iyo heelada iyo balwada godmaanseedkan culimada Soomaalidu gobonnimadoonkii kala gedsinaa iyo culimadii Soomaalidu waxa ay godadkii maansada carabiga ha ku gureen ereyo Soomaaliya waxay godadkii ama badihii afka carabiga ku gureen ereyo Soomaaliya tusaale ahaan culimadu de marka ay tusaale ahaan waxa iyagoo saliga nebiga qaadayay muraadkoodana sheegin jireen wuxuu oran jireen salaatullah alayka ya muhammad salaatullah alayka ya muhammad salaamullah ya nuural qulubi wadaadadu beerka xaydhala way cunaane ilaahay maad ka yabtaanoodna siisan godkaas aynu saliga u bixinay ee ku jira buuggu waxa uu leeyahay oo uu inta hore kala mid yahay baarcadihii ama saarkii ayuu kala mid yahay imakana waa god ka mid ah maansada Soomaalida oo soo galeeti ah laakiin ka mid noqday Soomaalida waliba kaluun maaha buuggu kaluun buu qorayaa laakiin waxa jira laba hab oo kale oo saliga nebiga ah oo ay culimada iyo gobonnimadoonkii Soomaalidu ku goreen ereyo Soomaaliya salaam waxay jireen اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام لقاتي يديك دلين يرضي لواغا دلكينا كسو دعيي اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام مركله waxay oran jireen اللهم صل على خير خلق سيدنا markuu kulli heera kaftamo marka kale kuudhumo اللهم صل على خير خلق سيد marka wan la qala wacdiyo marka kale weysa xumo waxaan uga jeednaa marka qaar kood marka maasa carabiga la keeno waxa laga yaabaa inuu jeedada la micneeyo marna waxa laga yaabaa in godkii carabiga hab u dhiis ereyo Soomaaliya lagu guro tusaale ahaan xajaadan cilmi qabile oo abo waxa Yusuf xajaadan abihii labada waxbarashada ayay nimadiisii buu shiriyo wuxuu ku yiri waxaad sharaxdaan af Soomaaliya turjuntaan beedkan gabayga رب يوم بكيت منه لما سرت في غيره بكيت إليه رب يوم بكيت منه بدنا مالين أنكوي لما سرت في غيره بكيت عليه أو مركي أنا ركي مالين كدرن عندي بقوي يوسف حاجان علي حاجان سود حاجان عبد السلام حاجان رجوين وأنا ولا قرني به علي حاجان ما مركا خلي وحولي هذا مالين أروجوتوي ومشالله بتاعه لاركي دلارتا inaad dib ugu oyda imaka laakiin godka marka aynu marayno waa god asalahan ka soo jeeda afka carabiga la Soomaaliyeey oo ereyo lagu guray god maansadida kale ee miisaanka maansada gaariye la saaray ee ku qoran buuga waxa kamid ah godka loo yaqaano heerimaahe hanna haybsan waxaan dusheenu waa roob waxaan dusheenu waa rays aan ka hore rax ka sii hooyo caanaysi horta reerku hadago hooyo caanaysi horta roobku hadago hooyo caanaysi horta raysku habaxo waxaynu arkaynaa godka heermaahay inuu ku bilaabmayo laba shaqal gaab
shaqal gaab kala ku xiga waa ku saddex shaqal dheer ku xiga shaqal gaab baa ku xiga laba shaqal dheer isku xiga sida awgeed godkaasi waxa uu ku fadhiyaa miisaan dhan 10 shaqal miisaan dhan 10 shaqal ayuu ku fadhiyaa waxa aynu si kooban u milicsanaynaa miisaankii maansada ee Caraale miisaankii maansada ee Caraale haddii aynu gaariyo soo nidhi waxa uu miisaankiisa ku sareeyaa shaqal dheerayaasha iyo shaqal gaabka horta Cabdilaahi Diiriye Guuled Caraale waxa uu waxbarashada ku qaatay jaamacadii la foolay kadibna jaamacada Mareykanka ayuu ka sii kororsaday aqoonta inkastoo uu nin caan yahay oo qoyahan oo la garanayo haddana haddii aan sharaxo Caraale dadka u sii sheeg Caraale waa kuma waxa jirtay manhajka waxa lagu dhigan jiray silsilada la yiraahdo silsilada xaydha niman intay bari meel tageen nin lagu yiri soo iibi de subagiyo wax kadibna intuu alaab soo iibiyo alaabtii la cuno la yidhi xaydh baan noo keentay ragii gabayada tirinay waxa ka mid ah ku jiray Cabdilaahi Diiriye Guuled Caraale abihi Diiriye Guuled Caraale oo wuxuu lahaa gartaad Maxamed Nuurow naqday uunka wada gaadhay gaashaamada inoogu timi galab carruurtiina dayuuraadka guuxaya iyo gaadhiyaa siday haddii aan u imaado miisaanka Caraale inta badan miisaanka maansada ee Caraale wuxuu ku qotomaa laba shay waxa uu ku qotomaa maxay laba shay Caraale waxa uu tiriyaa shaqal dheerayaasha waxa uu tiriyaa maxay shaqal dheerayaasha iyo alanada shaqal dheerayaasha iyo muxuu tiriyaa bay nidhi alanada way shaqal dheerayaasha waynu garanay oo shaqaladu de waxay isugu jiraan qaar gaaban iyo qaar dhaadheer haddaba ereyga alan waa maxay dad badan waa laga yaabaa inuu ku cusboonaado ereyga alan afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa syllable maxay syllable alanku waa shay kasta oo dhawaaq samayn kara waa shay kasta oo dhawaaq ama erey kasta oo dhawaaq samayn kara aan ilaahdo tusaale marka hadii aan qoro ba waa xarf wax cod oo ay leedahay ma jirto laakiin haddaan raaciyo ba cod bay leedahay waayo shibanu kaliya cod ma sameeyo shaqalka ayaa codka sameeya way markaa shay kasta oo cod samayn kara waa alan waa maxay waa alan eriyaduna waxay ka koobnaan karaan dhowr alan oo la isu geeyay alan kaliina waxa laga yaabaa inuu tusaale ahaan erey ma noqdo imika ereyga bad waa alan ereyga bad waa maxay waa alan ereyga dugsi waxa ku jira laba alan ereyga dugsi waxa ku jira laba alan oo dugtaasina waa alan sidaasina waa maxay waa alan ereyga tusaale ahaan haddaan ilaahdo gobolka Maroodi Jeex waxa ku jira ma waa alan roona waa alan diina waa maxay alan jeexna waa maxay alan markaa waa afar alan alanku wuxuu noqon karaa shaqal iyo shibana wada socdo sida ta waliba shaqal gaab wuxuu noqon karaa shaqal dheere iyo shibanayaal wada socdo sida taar wuxuu noqon karaa laba shibane iyo shaqal wada socdo sida bad wuxuu noqon karaa shaqal keligii gaar u taagan sida tusaale ahaan ka gabayada ugu dambeeya rabbiyo adiga sida uunka kaafiya eeda ugu dambaysa keligeed waxay noqonaysaa alan madax banaan waxaanu yiri gaariye Maxamed aynu ilaahno Caraale waxa uu tiriyaa alanada iyo shaqal dheerayaasha xeerarka Caraale waxa ka mid ah shaqaladu ama xeerarka miisaanka maansada shaqaladu kuma filiqsana tixda hab gaar ah ayay nidaamsan yihiin shaqaladu kuma filiqsana tixda
hab gaar ah ayay u nidaamsan yihiin hab gaar ah ayay u nidaamsan yihiin way waxyaabaha kale ee buugga miisaanka maansada ee Caraale uu qoro waxa ka mid ah isweydaarinta shaqalada maansadu waxa ay keentaa waxay keentaa god cusub waxay keentaa maxay god cusub oo tusaale ahaan imaka haddii aynu idhaahno wardheer dal wanaagsanayde waa meeris heella ah ama hirwo ah ama dhaanta ah ama balwo ah laakiin haddii aan idhaahdo war dal wanaagsanayda wardheer waa hojis gabay marka shaqaladii la isweydaariyay ayaa sababay gebi ahaanba inuu godku isbedelo qodobka labaad shaqaladu kuma filiqsanaa tixda ama maansada ay hab gaar ah ayay isugu xidhan yihiin waxaynu soo qaadan doonaa dhowr ka mid ah Allahumma salli ala Muhammad dhowr meeris oo aynu saarayno miisaanka maansada ee Caraale tusaale ahaan imaka halka meeris baynu ku qoraynaa la yiraahdo saadaasha mooye meeriskaas haddii aad eegtaan buugga waxa ugu hor qoran 5-4 meeriska maxaa buugga ugu hor qoran 5-4 tiradan halkeebay ka timi shantani waa alanadii oo saa waa maxay waa alan daana waa maxay waa alan shaana waa maxay waa alan moona waa maxay waa alan yeena waa maxay shan marka shan alan ba halka kuugu jira meeriska shaqaleerayaashii buu gaar u tirinayaa kan shaqaleere weeye kana waa shaqaleere kana waa maxay shaqaleerayaashina afar ayay noqdeen haddii aynu meeris kale soo qaadano oo tusaale ahaan ah khamriyaanu idin dilin sida buuggeena ku qoran meeriskaas waxa ku qoran waa 7-2 micnaheedu waxa weeye waxa ku jira 7 alan iyo 2 shaqaleere ayaa ku jira waxyaabaha ay ku kala gedin yihiin miisaanka maansada ee Caraale iyo miisaanka maansada ee Gaariye waxa ka mid ah marka la joogo miisaanka maansada ee Caraale maansooyinka ku samaysan nudaha dhaadheer sida gabayga oo kale sida heesta kabada oo kale sida buraanburka oo kale sida dhaantada oo kale 2 ama 3 ayaa loo kala jabiyaa oo tusaale ahaan haddaynu soo qaadano gabaygii Ismaaciil Mire inkastuu ka laho ama kabtiyo ama kur dheer fuulo inkastuu ka laho ama kabtiyo ama kur dheer fuulo waxaynu arkaynaa halkani waa meeris gabaya oo ku jira gabaygii ragow kibirka waa lagu kufaa ka halowgaado Ismaaciil Mire uu tiriyay gabaygaas waxa uu kala qaaday Allahumma salli ala Muhammad Abdullaahi Diiriye guul Caraale meeriskaas 2 qaybta hore ee meeriska gabayga waxa la yiraahdaa hoj waa halka gabayaagu ku nasto qaybta dambe waxa la yiraahdaa maxay horis qaybta hore gabayga waxa la yiraahdaa hoj qaybta dambe waxa la yiraahdaa horis mid kastana miisaankeeda ayuu gaar u saaraya oo tusaale ahaan qaybta hore waa 10-3 minus waxa weeye 10 alan iyo 3 shaqaleere qaybta dambena waa 6-2 oo micnaheedu waxa weeye waxa ku jira Allahumma salli ala Muhammad waxa ku jira 6 alan iyo 2 shaqaleere ayaa ku jira
sidaas oo kale marka awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabahay atoonsaday waa heelo ama waa hiru ama waa dhaanto ama waa balo waxa loo qaybinayaa laba awowgay ninkiina garbad indhaha tiray ninkii aabahay atoonsaday ninkii anigana iibsaday marka la joogo heesta kabada oo kale miisaanka maansada caraare heesta kabada 3 waa loo qaybinayaa naagta kabada lehay gar wad miisaamisa kaalindaranayna wad miisaamisa adaan kaydu sii dhiginayna wad miisaamisa halka ugu dambaysa buugeenu waxa uu si kooban uga hadlayaa inuu qeexo waxa loo yaqaan maansada iyo shuruudaheeda buugu wuxuu si kooban uga hadlayaa inuu qeexo markuu miisaanka maansada joogo maansada iyo qaybaheeda maansadu waa koox suugaanta kamid ah oo leh xaraf raac iyo hab raac iyo luuq iyo jaan maansadu waa koox suugaanta kamid ah oo leh xaraf raac ama qaafiyad iyo hab dhac oo ah hab raac iyo jaan oo ah cod saynu inagu nahay dad aynu ilmo gabadh islaan oday u kala noqonayno ay maansadu u kala noqotaa gabay geeraar jiifto buraanbur dhaanto iyo qaybaheeda kala gedisan waa maxay xaraf raaca oo sidoo kale Soomaalidu taqaano qaafiyad waa in meerisada maansada uu ku jiro erey ku bilaabmaya xaraf isku mid ah oo taala marka la silsiladii deelay waxa arkaysaa in xarafku ku arooraysa uu deel yahay hadii la yiraahdo siin leeyno dareemaysa inuu yahay maxay Allahumma salli ala Muhammad siin maansooyinka qaar kood waxa shardi ah inuu xaraf raac ku jiro maansada hal mar kuwa gaagaaban sida jiiftada mooyaha haanta qaar koodna laba sida gabayga iyo buraanburka iyo dhaantada iyo waxa ugu xaraf raac badan kabada oo meeriskii bay tahay inuu xarafku ku jiro maxay 3 jeer hadii gabayaagu uu ka tago xaraf raac waxa dhaca qalad loo yaqaano deelqaaf hadii gabayaagu uu ka tago xaraf raac waxa dhaca gaf maansada la yiraahdo maxay deelqaaf maansadiina way ka guuraysaa magacii maansoo tix jacbura bay noqonaysaa jacburku waa maansaan xaraf raac lahayn ereyga maanso waxay isugu dhow yihiin ereyga tix waana laba erey oo inta badan la isku badbedelan karo laakiin waxa la leeyahay marka si cilmi loo kala saarayo maansadu ma yeesho deelqaaf hadii maansadu ay yeelan weydo xaraf raac oo deelqaaf uu galo waxa la waa tix jacbure lama oranayo waa maanso jacbure intaas ayaa lagu kala sarreeyaa oo ereyga maanso ayaa ka weyn laga dhigaa tixdana de wax marna xaraf raac ka tagi kara marna magaranaysa ayaa laga dhigaa shardiga labaad ee maansada ay leedahay waa habdhaca ama habdhaca iyo habraacu waa sida la isugu xigsiiyo shaqalada kala gedisan ama ereyada kala gedisan ee tixda lagu dhisayo oo tusaale ahaan imika haddaan erey si 3 siyood u yiraahdo cambara waxay tidhi waxay igu tidhi cambaro ayaa tidhi wuxuu ma sheegay cambaro waxay tidhi laakiin 3 siyood kala duwan baan u sheegay ka koobaad cambara waxay tidhi waa tix waana jiifto ka labaad waxay igu tidhi cambaro waa tix waana barcade cambara ayaa tidhi ka ugu dambeeya waa tiraab oo tix ma aha habraacu ama habdhacu waa dhismaha maansada hadii habdhacu ama habraacu qaldamo waxa dhaca gaf maanseed la yiraahdo laaxin maansuduna gabi ahaan way ka guurtaa magacii tixda oo waxay gabi ahaan isu bedeshaa maxay tiraab bay isu bedelaysaa waayo waxa jabay xeerkii dhismaha maansada oo habraac lama aqbali karo ka ugu dambeeyna waxa weeye in marka maansada laga helo xaraf raac iyo habraac iyo habdhac ay yeelan karto luuq gaar oo lagu qaado oo lagu heeso oo music loo tumo oo bariga hore de jaaniye jiib loo tumi jiray guud ahaan miisaankii maansada Soomaalida labadaas cashar aynu sida kooban u dul marnay ayaynu ku gabagabaynaynaa buugga waxa soo kala ku qoran laylisyo kala gedisan oo ay tahay ardaydu inay ka shaqeeyaan waxaan u soo koobnay anagoo u eegayna aqoonta loogu talagalay inay bartaan ardayda dugsiyada sare
marka haddii heer jaamacadeed oo kale casharada loo duubayo ama si furan oo qof kasta oo doonaya inuu maansada barto waa lagu fidin lahayn si sidan ka faahfaahsan oo ka balbalaaran oo ka godod badan oo ka sharax badan ayaanu u duubi lahayn laakiin waxaan ugu talagalay in ugu yaraan lagu kobo oo lagu kabciyo aqoonta ardayda ku jirta dugsiyada sare ee Soomaaliland waxayna ahayd dhawaan markii lagu daray miisaanka maansada manhajku waxaanu ka mid yahay cutubiyada cusub ee adag tahay ardaydu inay fahmaan ama macallimiinta qudhoodaba ku adkaan kara inay ardayda u gudbiyaan wixii dareen celina ama talo iyo tusaale ah waa wadaagi doonaa intaasaan kusoo koobayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.